Munaasabad lagu xusay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegatay markii la asteeyay maalinta qaran ee qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed oo 2017 uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen wasiirka gargaarka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya madaxda hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaran iyo mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha. Xubnihii ka kala socday hay'adaha kala duwan ee dowladda ayaa si weyn uga hadlay dhibaatooyinka ay qabaan qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed iyo sidii wax looga qaban lahaa. Aamina Saciid Cali, Gudoomiyaha Hay'adda Qaxootiga Qaranka iyo Barakacayaasha ayaa ka hadashay baahiyaha loo qabo sidii fursado loogu abuuri lahaa barakacayaasha iyo qaxootiga dalka dib ugu soo laabanaya. Maalintan waa maalin muhiim ah. Laba siba muhiim bay u tahay. Marka ugu horeysa waxay muhiim u tahay dad Soomaaliyeed oo wadamo kala jiray oo iyaga oo dhibaato u geysay ayaa dalkoodii ku soo noqday. Waa farxad qofku inuu yimaado gurigiisa hooyo. Anuu qaxooti ma noqon laakiin qurba joog baan noqday. Dareenka dal shisheeye markaad joogtana waa isku mid. Waa tii hadda ninkii hilibka jarjar la yiri laga sheekeeyay sida uu dareemayo. Wasiirka gargaarka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Saciid ayaa si weyn uga hadlay qorshaha dowladda ee ku aadan maareynta arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka. Wuxuu sheegay inay jiraan dib u dejin loo sameeyay qaar ka mid ah barakacayaasha isagoo tusaale ahaan uga soo qaatay Koonfur Galbeed iyo Puntland deegaano ka mid ah. Waxaana uu xusay inay kaalin ka qaadan doonaan sidii qorshe loogu sameyn lahaa dadkaasi. Soo wada barakacayaan waa meelihii oo wax soo saarka wadanka waa Jubbaland waa Koonfur Galbeed waa Hirshabeelle meelaha waawida maraan dadka meeshan ku barakacsan ma hadda caadi ma hadda iskiimid am dalxiis u yimideen waa beerley waa kalluumaysi waa xoololey waa dadkii wax soo saarka wadanka soo saari jiray siyaasad midaysan aan ku maareeyno wiil loo mucado taas in laga wada shaqeeyo sababta hadduu hay'ad kasta dhinac u socoto ma yaafan waa in isku yimaada aan wada shaqeynaa waxaas la qabanaa problemkan oo hay IDPs ka waa problem aad u weyn magaaladan xamar kaliya waxa lagu qiyaasaa ilaa 600,000 inay ku nool yihiin guryaha dawladda deegaan dhulaan aan siin laanahay maamulada kaliya ku guuleystay waxay noqdeen Puntland iyo Koonfur Galbeed waxaan soo arkay maraan soo booqday aan ka yimid xudur waxay awoodeen inay dhul weyn maamulku ku wareejiso maxal yiraahdo hay'adan IOM-ta waxa la dejiyay ilaa 6,000 oo qoys yana mar aad tagtaan soo aragtaan jeclaan lahay. Kawsar Cabdiraxmaan Axmed, Horseed TV, Nairobi.